السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داود يلا كنا سودوا هذا برنامج كيني أنك هل جرنا تاريخ نولته فنك بولودك هدي أهلا يعني أطور عاني أتريش عنا يولي بكو كونفورت هندية بس برنامج كينا ما أنت مدة سوق الدنيا هاي وحندونينا أطورياش بولودك أنا معلم والبمد أنك سوق هذا حلقة تاسوق السابسن أكتر والبا أفلام تيسا filimada laga soo minguuriyay hadii ay lahaayeen Hollywoodka iyo Tamilka iyo Telugu iyo waliba Karnataka mise ogtahay daawada aktarka lagu magacaabo Akshay Kumar inuu yahay atooraha kaliya ee aflaamta remake ugu badan sameeya daawada hadiyada ogtahay baba ogtahay hadiyada ogeena waxaan ku sheegaynaa ma ogtahay filimka lagu magacaabo Yihdilagi ee superstar Akshay Kumar uu sameeyay film Hollywood kaasoo lagu magacaabo Sabrina kaasoo la daawaday 1954 mise ogtahay filimka Akshay Kumar iyo Sunil Shetty ee ku faanaan ee lagu magacaabo Mohra kaasoo la daawaday 1994 in sheeka ahaan laga soo koobi gareeyay ama laga soo minguuriyay film Hollywood kaasoo lagu magacaabo Dead Wish 4 kaasoo la daawaday 1987 wali bartanka waxaan kaga jirnaa Akshay Kumar iyo aflaamtiisa film ahaan film laga soo koobiyay sheeka kale filmka la magacaabo Min Qalaadatu Annari kaasoo la daawaday 1994 moogtahay daawada sheeka ahaan in laga soo minguuriyay ama laga soo koobi gareeyay film Hollywood kaasoo lagu magacaabo Lethal Weapon kaasoo la daawaday 1987 mise ogtahay daawada filmka hamhen bamisal ee Sunil Shetty iyo Akshay Kumar ay sameeyeen isla kaasoo la daawaday 1994 in sheeka ahaan laga soo koobi gareeyay film Chinese kaasoo lagu magacaabo The Killer kaasoo sana la daawaday 1987 daawada hadii aad tahay marka kugu horeysa soo booqato YouTube channelkeena dulucda filimada subscribe inoo saar like iyo share kana hayna reelowin waadna ku mahadsantiin sida wanaagsan aad mar walba barnaamijkeena aw la socotaan waliba waxa bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni ma ogtahay in Akshay Kumar uu yahay atooraha kaliya ee aflaamta remake ama filimkiisa filimka la sheeka hal laga soo minguuriyay inuu kaalinta koobaad ku jiro barnaamijkeenana waa barnaamij taxana maalin walba waxaan doonaynaa inaan ku soo qaadano atoore barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa maalin walba atoore iyo filimkiisa sheeka ahaan filimka laga soo minguuriyay ama lagu soo koobi gareeyay mise ogtahay daawada filimka Angaaray ee 1988 Akshay Kumar ee Nagarjuma ay sameeyeen in sheeka ahaan laga soo minguuriyay ama laga soo koobi gareeyay film Hollywood kaasoo lagu magacaabo State of Grace kaasoo isna la daawaday 1990 mise ogtahay daawada filimka Akshay Kumar ee Sankarash ee British inta isla sameeyeen ee la daawaday 1999 in sheeka ahaan laga soo koobi gareeyay film Hollywood kaasoo lagu magacaabo The Silence of the Lambs kaasoo la daawaday 1991 mise ogtahay daawada Akshay Kumar filimka ajnabi ee usoo baxay 2001 in sheeka ahaan laga soo minguuriyay ama laga soo koobi gareeyay film Hollywood kaasoo lagu magacaabo Constantine Adults kaasoo la daawaday 1992 mise ogtahay daawada filimka Akshay Kumar ee Awara Bagal Devana ee 2002 la daawaday sheeka ahaan laga soo minguuriyay ama laga soo koobi gareeyay film lagu magacaabo Rule 9 Yards kaasoo la daawaday 2000 mise ogtahay daawada filimka Akshay Kumar ee Taras ee 2004 la daawaday sheeka ahaan in laga soo koobi gareeyay ama laga soo minguuriyay film Hollywood kaasoo lagu magacaabo Disclars kaasoo la daawaday 1994 mise ogtahay Akshay Kumar filimka Welcome ee 2007 la daawaday ee superstar Akshay Kumar sameeyay in sheeka ahaan laga soo minguuriyay film lagu magacaabo Mickey Blue Eyes kaasoo la daawaday 1999 daawada waliba waxaan bartanka kaga jirnaa Akshay Kumar iyo filmadiisa Bollywoodka sheeka ahaan filmada laga soo koobi gareeyay ma ogtahay filimka Hi Baby ee 2007 la daawaday in laga soo minguuriyay ama laga soo koobi gareeyay film Hollywood kaasoo lagu magacaabo Three Man and Baby kaasoo la daawaday 1987 mise ogtahay filimka Hirfeera Fairy ee 2006 la daawaday kaasoo isla sameeyeen Akshay Kumar iyo Sunil Shetty iyo Paresh Rawal in sheeka ahaan laga soo minguuriyay ama laga soo koobi gareeyay film lagu magacaabo Lock, Stock and Two Smoking Barrels kaasoo la daawaday 1999 kuwaas waxay ahaayeen kuwii Hollywoodka imankana aan u galno Akshay Kumar iyo aflaamtiisa Bollywoodka uu sameeyay ma ogtahay superstar Akshay Kumar filimka Fator ee Akshay Kumar uu sameeyay kaasoo Sunil Shetty isla sameeyeen in sheeka ahaan laga soo minguuriyay ama laga soo koobi gareeyay film Rafi Teja uu sameeyay 2006 kaasoo lagu magacaabo Vikram Arkudu in laga soo koobi gareeyay mise ogtahay daawada filimka Akshay Kumar ee Sonakshi Sin isla sameeyeen ee Holiday in laga soo koobi gareeyay film Tamil kaasoo sameeyay Talabati Vijay kaasoo lagu magacaabo Tubaki daawada Akshay Kumar waa atooraha kaliya Bollywood ka tirsan kaasoo sheeka ahaan aflaamtiisa laga soo koobi gareeyay filmo isugu jira Hollywood iyo Tollywood maanta Akshay Kumar ayaan ku soo qaadanay barnaamijkeena waxaan rajaynaynaa maalin walba actor inaan ku soo qaadan doono daawada hadii aad tahay marka kugu horeysa soo booqato YouTube channelkeena dulucda filimada subscribe inoo saar like iyo share kana hayna reelowin barnaamijkana waxaa idin daadihinayay anigoo ah Nuur Cabdikariin Qalinle barnaamij lamada intaan kala kulmayna waxaa idin kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh